ولا ليا waxaan doonayaa inaan yara taabto astaamo ku saabsan maxaad ku garanaysaa inuu iimaankaagu uu ka tagay meeshii aad ku ogeyd maxaad ku garanaysaa inay iimaankaagu uu daciifay oo uu fogaaday oo uu guray astaamahan inoo tirinayaa bal xasuusta ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga ha inoo barakeeyo waxaa ka mid ah qaala alculamaa waxaa ka mid ah alwuquucu fi lmacsiya inuu qofku dembiga si hawl yar ugu dhaco si hawl yar inuu dembiga ugu dhaco asagaan garanaynin oo ammaan kaba filaynin baad arkaysaa asagoo dembi ku dhex jira waxaad arkaysaa laba qof oo qof xamanaya inay si hawl yar ay tahay adiguna inaad dhinaca kaga qabatid aad tahay war ma ninkii reer hebel wallaahi oo billaahi ninkaas caynkan moodayay ma aha oo halkaa adiguna aad sheekada kaga sii qabatid waxay ku tusaysaa markaas si hawl yar haddii aad macsiyadda ugu dhacdid inuu iimaankaagu uu sii gurayo haddii aad maqashid music ama muusiiqa aad adigu markaa iskala sii wadid ama aad iska dhagaysatid ama aad iska dhagatirtid oo aanad ka diiqadoonin dukaan baad gelaysaa ama meel baad gelaysaa ama warkaad daawanaysaa aljaziira sida isha ugu haysaayo music bay ciyaareen adigii diiqati nafsi kamaad dareemin kamaad xumaanin waad sii waday waad iska sii dhagaysatay inaad macsiyad ku jirtid ma ogid waxaad ogaataa inuu iimaankaagu uu daciif yahay waxaad arkaysaa gabadh qaawan ilaahay laga yaabaa inuu idinkayda asture waddan muslima aad joogtaan laakiin waan arkay waxaa ku dhex nooshii laakiin waxaa laga yaabaa annakoo kale inaannu aragno gabadh qaawan oo dee labayk allahuma labayk in yaro cawrada soo asturtay mooyaane wax kale iska soo dhigtay oo haddana ku khidmadaynaysa ama tigir kaa iibinaysa ama cunto kaa iibinaysa ama lacag kaa qaadaysa oo inaad eegtid oo aad la hadashid aanay waxba ahayn taasina ay tahay macsiyad aad ku dhacaysid qul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim ilaahay wuxuu uhi waxaad ku tidhaahda dadka mu'miniinta ah inay ishooda ay dejiyaan oo aanay macsiyadda eegin gabadha aanay eegin laakiin iimaankii baa guray markay gabadhu sida ay ku hor taagan tahay adigu maba dareema sidaad macsiyad ku jirtida waad la sii wadaysaa taasi waxay daliil kuu tahay inuu iimaankaagu guray inaanay meeshii waxba ku hadhin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih waa ninkii macsiyad iyo dembi iyo wax munkar ah oo shareecaddu ay diiday arka war gacanta ha ku bedelo faman lam yastatic kii gacanta kari waaya fabilisaani war carabka ha ka hadlo ha ku dhawaaqo kelimadda xaqa ah ha sheego ha yidhaahdo walaala is-asto ha yidhaahdo waxaa ma ogolin waxaa raalli kama nihin fabilisaani faman lam yastatic qofka kaa kari waaya buu nebigu sala allahu calayhi wasalam fabiqalbih wadnaha ha ka naqo markaasu muxuu raaciyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wadalika adcafu liimaan iimaanka inta ugu yari waa karaahadda aad wadnaha ku haysid inaad yaro karaahdid macsiyadda annaguna waddan baanu joognaa aanu aragno rag gacmaha is haysta rag halkaa isku dhunkanaya dumarka intay ka timi rag halkaa isku haysta kursi iskula fadhiya oo haddana aanad dareemaynin xanuun oo aanad odhanaynin tollaahi maxaa waddankan idhigo kale amad odhanayn waa niyo kelimata alxaq ma idhaahda aanad odhanaynin labadaa dumara is haysa ama ninkay gabadha is haysa ama war xaqa kelmad ma ka idhaahdaa aanad odhanayn dareenna aanu kugu jirin marka waxaad ogaataa inay tahay min dacfi aliimaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlaya bani israa'iil qaala uma qasat quluubuhum
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. markuu bani Israa'iil macaasiga soo sameeyeen oo dhan uu soo tiriyay ilma ay dileen nabi Muuse oo ka horeeyay iyo masaa'ibkay soo mariyeen wuxuu yiri thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara. wadnihiina ba adkaaday oo sida dhagaxa ayuu noqday dhagax halka taagan oo laabta kuugu jira ayuu noqday. saddexaad aad ku garanaysaa waxa kamida عدم الإتقان العبادة. إن العبادة دي إلهي كفري سيدي إلهي كفري أنا أقدنين أو الصلاة بلا خشوع بلا إتقان أنا تقرنين واحد أخردي تشهد كويه هي أذكار كد أخردي مركز وحاصلا أركتد واحد سكو أركتاد أوقاتا إنه إيمانك ضعيف. وهذا أركيسا dhalinyaro kubadda saacado ciyaaraysa hadda saacaday ciyaarayeen way ordayeen sidii fardaha isma taagayaan waxay ka soo safarayaan meel fog hebelow isoomar in kubadda ay dhaafi hebelow hayga imanin hay ilaawin wa boqol goor buu xasuusinaya muddo dheer bay soo soconayaan ijtihaadka uu ku sameeynayo ama uu galinayo fi shay'in taafih وحن لا يغني ولا يسمن من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع markay laakiin cibaadada timaado salaadii degdeg buu uga baxaya asagoo bi ay sunnihi aan tukanin oo aan dhikrigi nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu nagu dhiirigeliya aan buuxinin ayuu boodaya. dumarku suuqa nololka ayaa laga yaabaa inay sidii fiidmeerta soo wareegaan oo aanay fadhiisanin oo kabahay kaga dhamaadaan. لكن حلقة الذكر من الحلقات أو إلهي اللي حسيه أو نبي اللي صليه لقميابا إنه تقام لقيابا إنه اجتهاد قليل من فربضا لكن مركة مادو عبادة أين ظن مادو تكاسل يتراخي إلهينا سبحانه وتعالى وحنوشك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى markay salaada u kacayaan buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayagoo ku saala oo leeyihiin ay saaran tahay ayay kacaan buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ta ogsoonow hadii aad markaa dareentid arrimihii adduunka inaad u firfircoon tahay oo aad ma sha Allah aanad jeclad inaad ka hadhid laakiin markay cibaadadii iyo diintii ay timaado aad cagaha jiidaysid waxaad ogaataa inuu iimaankaagu uu daciifay oo meeshan wadnahan aad sidata inaanay wax badani ku harin bal cad ayaa ku cad wad ogsoonaanaysa. waxa kale kamida عدم تأثر بقراءة القرآن. إنه إمامكم مركو القرآن كو أخريه وفاتحة أخريه مردو حيسي تأثر كو سمعين مايو أرن ميسي إلهي سبحانه وتعالى تضبئية طبن قربو يقو أمرين أخرية سورة الفاتحة والحمد لله رب العالمين تولي إلهي محوقة جهدا الحمد لله معنى هيدو وامح هدي أن معنى هيدا أن فهمو وأن فهم سنهي محان تولي إلهي يقو مهد نقا قرآنك مدوحي وقفكو مدوحي وحو أرانيا وقراءة هبا شيخاسي قراءة سوى قراءة قروح بدن شيخ سديس قراءة دي سؤال بقروح بدنتهي شيخ ماهر المعيقل القراءة دي سوى قروح بدنتهي لكن متكو أرانيا قراءة مؤثرة وقراءة وضنها كتابة نسا وإنه يريح لأن يرفع ربضان الصوماليات وكان ذا نلتشوكتا وحن كولنا مالنت سلاسة كبد بعيارة كبد العيارة ينبى نقول شري مركا سنين تنو قدام بيسي ومالنت سنين ننكي مركا إلهي بوعاي سبحانه وتعالى إلهي أيو عاي كلمة دي إلهي العاي لك تنقصر بعضي قردي هالكا تكتبهم كوري ونيوم مد إلهي عاي إذن كتيرا ما يبعد هذا إلهي عاي ننك إلهي عاي سبحانه وتعالى
ayaa nin iska waalan buu ahaayoo xiddigaha tirinaya iska yara fayaansana ninkii difaacaya buu reerkoodii caayay war meydinka reer hebel ay la hadlaya buu yidhi annaka reer hebel waxa ku samayna ninkii reerkiisa la caayay ninkiiba laga qaban waay war maxaa dhacay baan ku yidhi hebel wax ninkan annaku reerkaygii buu caayay war ninkan miyaanu hay ninkan markii uu qarinayay markii ilaahay caayay ilaahay asaga ilaahay way laakiin annaka reerka buu ilaahay waa ilaahay annaka reerka marka maxaad u garanaysaa qofka waxaad u garanaysaa inaan meeshii iimaan ku jirin inaanay iimaan ku jirin ayaad garanaysaa waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan intaa ku soo gunaanado ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga haynoo barakay laakiin calaamado fara badan baa jira oo la isku arko haddii inta aan taataabtay aad isku aragtid ama aad ogaatid inaad calaamadaha ay adigu aad calaamada ku dhex jirtid ay yihiin isgaad oo nafta badbaadi oo wadnaha waxaad ku rushaysaa shay min dikri illaah wa tilaawati alqur'aan iyo masaajidkood la yimaado iyo naftaad aad u xakamaysid waayo naftan bini aadankii waa cajiib waxaad bartid ayay raacdaa haddii aad markaa طaacati illaah iyo qiyaama leyl iyo dikr iyo qiraa'ata alqur'aan iyo waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay nafta ku maaweydisidna naftu way ku soo raaci haddii aad ku mashquulisid waxyaaba bilaa macno ah ciyaaro la daawanayo suuq dumar suuq la geynayo caruur kabahoodii iyo koofiyadahoodii laga shaqaynayo waxyaabo umuura dunya aad isku mashquulisid ayadoo aad kula tagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal mawt uu yimaado aniga intaasay iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته